dhaaminta jirigaan biyo ah Ifraax Ilyas waa hawsheedan maalinlaha ah ee ay u qaabilsan tahay qoyskeeda saboolka ah. Gabadhan yar ee agoonta ah shaqadan culus waxa uu si dheer duruufo kale oo ay wajahayaan iyada iyo qoyskeeda sida ay Shabeelle TV u sheegtay ayeedeed Aamino Maxamed Qaasim. ayeedeed ah gabadheed inkastoo jirigaaman ay qaadi karin dan iyo duruuf ayada u geynayso mise dadaal adduunyo intay ka bado ayadoo meel ay gaarin ay isgaarsiiso waa fahantaa maleynaha jirigaamada hadday geysan wax ka soo qaadaya ma laha soo jiida daaloo ma soo jiidayso ayadaa soo saarsanayso wax u saaranayana ma arkayso ceelkaas ayada kaligeeda soo wareegsanayso darbi saaranayso marka anigana qof micnaha xanuunsan oo micnaha ayada qof jabsan waa wax biyo aroora ma laha isleedahay cunugtay maanta gabadheedan iyo ilmaheega meeshaan wax joogaan waa mahad maxaate Axmed iyo Ifraax Ilyas maanta wax daryeel maanta ay iga haystaan Ilaahay awoorto ma jirto waxayna ku nool yihiin xeradaas wax laga kariyo oo ciidankaas ay cunaan waxay soo reebaan ay bacda ay ku soo siiyaan. Ifraax Ilyas oo aad daawadayaal ku aragteen baraha bulshada gaar ahaan Facebook iyada oo cagacad oo jirigaankan biyaha wada waxaan soo booqanay gurigeeda waxaan la kulannay qoyskeeda. Hadda aniga Ifraax waxaan u soconnaa ceelka ay ka soo aroorto oo laamiga ku yaala agagaarka sayidka halka ay degan yihiin waa kaamkan oo ah dhinaca dambe xarunta baarlamaanka. Marka hadda jirigaanka ay wada waa Faaruq meeshan tagaynaa biyahan soo aroorina laakiin markan aniga soo qaadaya. Ifraax Ilyas biyo aroorku waa shaqo sidoo kale ay la wadaagaan caruur aad u daayar oo ku nool kaamkan tallaabooyinka u jira xarunta baarlamaanka. Ifraax ali dhaawana ayay jirna biyo soo qaadaa. haye Ifraaxay ka waran wax ma barataa? maya haye maxaa dhahay? hooyadii waxbarasho ma geenin. jirgaanka biyaha marka awoodid ka waran culayska see ma dareentaa? haa haye marka maalin kasta miyaa biyaha soo aroortaa? haa haye maxaa ka codsanaysaa ummadda muslimiinta Soomaalida agoonaa tahay way ku arkeen adoo cagacad in biyo aad aroortid qoyskiina waxa waa xaaladooda waa arkay ka waran maxaa ka codsanaysaa dadkaas? inay waxbarasho geeyaan oo guri fiican nagajiyaan. mustaqbalka maxaa jeceshaa inaad noqotid marka aad wax baratid? macallin. dadka inaad wax baratid aad jeceshaa miyaa? haa halkan aan taagannahay aniga iyo Ifraax waa goobta ay ka aroorto maalin kasta biyahan iyadoo cagacad bay martaa xarunta baarlamaanka hortiisa. meeshan waxa ay ku taallaa ilbaabka laga galo baarlamaanka. Ifraax oo ah gabar yar oo agoon ah oo qoys danyar ka soo jeeda ayaana maalin kasta hormarta. xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya kursiga waxa ay ku fadhiyaan matalaadda shacabka laakiin marka hadda aad eegtid danahooda gaarka ah iyo mooshinka ay ka keenayaan madaxda sare ayaa hawl ugu filan Ifraax iyo dadka la midka inay ka hadlaanba uma baahna. Maxamuud Soofeysana Shabeelle TV Muqdisho.